بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء ku-xigeenka dalka golaha wasiirada oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka yahay wasiirada kale nagala soo qayb galay munaasabadan aaska ah xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kala gedisan dhammaantood aaska nagala soo qayb galay assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib taariikhda safiir ciise dheere waxaa wax kooban ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda safiirka Allah u naxariisto in muddahu xanuunsanayay waxaa dhammaaday waqtigiisii runtii sida uu u sheegay wasiirka dibaddu safiirku wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan aniga anoo ciyaal iskuul ah ayaan bartay markaas wuxuu maamulo ka ahaa meel oo tababarka wasaaradda waxbarashada ay lahayd oo la dhihi jiray ceel jaalle marka kadib waaxyo kala duwan oo wasaaradda waxbarashada uu ka shaqaynayay ilaa mataqaanaa looga magacaabayo safiirka Tunisia marka safiirka xanuunkiisu xoogaa muddo uu socda bukaan socod ahaa maanta ayay soo dhamaatay Allah u naxariisto intaasaan rabaa anigu inaan mataqaanaa iraahdo ugana mahad celiyo dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda aaska marka dhammaantiin ajri xasan ay ka siiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi